بسم الله الرحمن الرحيم مدحوينها جمهورية فدرالك الصومالية رئيس الوزراء دولة فدرالك دمان مدحدا قولها وتشجع قرنك دولة فدرالك دولتها حمناك دولة فدرالك الصومالية مسؤولين تا قولياش دولة فدرالك دولتها حمناك ويقول الريان قدونك لوضع أقل dhammaan musharaxiinta xilka madaxweynenimada iyo mas'uuliyiinta kale ee kala duwan ee golaha fadhida wakiilada beesha caalamka madaxda iyo mas'uuliyiinta ururada bulshada rayidka ah saraakiisha iyo ciidamada amniga iyo saxaafadda dhammaantiin assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu waxaan halkaan uga mahadcelinayaa ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya dowrkiisa hogaamineed iyo fududeynta qabsoomidda shirka golaha wada tashiga qaranka iyo dowrkii ay madaxweynayaasha kale ee dawladaha xubnaha ka qaateen wada hadallada golaha wada tashiga qaranka waxaan sidoo kale u mahadcelinayaa dhammaan intii ka qayb qaadatay diyaarinta munaasabadan oo lagu soo xirayo shirkii golaha wada tashiga qaranka ee maalmihii la soo dhaafay ka socday magaalada Muqdisho waxaan kaloo bogaadinayaa taageerada beesha caalamka oo runtii ahaa dadaal badan geliyay sidii aan heshiis uga gaari lahayn qabsoomidda doorashada dalka mudanayaal iyo marwooyin sharaf weyn ayay ii tahay in aan halkaan maanta idin kula qaybsado farxadda dhamaystirka wada hadalladii u dhaxeeyay madaxda golaha wada tashiga qaranka ee muddadan ka socday magaalada Muqdisho ee aan uga hadlaynay xalinta caqabadihii hareeyay fulinta heshiiskii aan 17 Sebtembar 2020 ku saxiixnay magaalada Muqdisho mudanayaal iyo marwooyin warmudkiyeedka halka laga akhriyay oo ah qodobadii ka soo baxay shirkii golaha wada tashiga qaranka wuxuu ku yimid isu tanaasul isqancin iyo rogrogis sidii xal wada ogol ah looga gaari lahaa caqabadihii ka jiray helgelinta doorashada dalka iyadoo la tixgelinaya ku dhaqanka heshiiskii 17 Sebtembar 2020 sida aad wada ogtihiin waxa qarka u fulnay in dalku galo burbur dawladnimo xasiloon darro siyaasadeed iyo khalkhal amni oo dhammaantood horseedi kartay khatar in dalku ku laabto wadadii laga soo kabsanayay ee dagaalka sokeeyay taasoo ilaahay mahadiis aan dhihi karno in lagaga badbaaday niyad sami iyo juhdi dheer oo guushiisa la gaaray aan halkan maanta u wada joogno mudanayaal iyo marwooyin dawlad dhiska dalkeennu wuxuu weli ku jiraa xaalad nugul ah maadaama uu dalku weli ka soo kabanayo burbur dawladnimo mid dhaqaale iyo mid bulsho haddaba dhammaan gaar ahaan mas'uuliyiinta dawladda federaalka loo doorto iyo dawladaha xubnaha ka ah waxaa waajib inagu ah in aan mas'uuliyadda alle hortiisa ah iska saarno sidii looga miro dhalin lahaa geedi socodka dawlad dhiska dalka iyadoo la ilaalinayo qawaaniinta iyo mabaadi'da lagu heshiiyey ee saldhigga u ah tubta dawlad dhiska iyo nidaamka federaaleynta dastuurka ku meel gaarku ugu horeeyo mudanayaal marwooyin dalka Soomaaliya waxay baahi weyn u qabtaa hay'ado dawladeed oo ilaaliya qiyamka dadka iyo dalka Soomaaliyeed fuliyana danahooda masiiriga ah iyagoo loo marayo hanaan dimuqraadi ah ee heshiis lagu yahay sidaa daraadeed dadka Soomaaliyeed waxaan ugu baaqayaa inay aad uga fiirsadaan marxaladaha kala guurka ee dalku marayo si wadar ogolna ay uga gudbaan caqabadaha ka imaan kara waxaan kaloo ii muuqata inay si midaysan uga wada shaqeeyaan marxaladda ka dambaysa doorashada oo ah marxalad xasaasi ah oo habboonayn in dib loogu noqdo khaladaad badan oo marar kala duwan dhacay qorshayaasha mudnaanta qaran leh oo ay tahay in dhammaystirkooda
la iskala xisaabtamo waxaa ka mid ah dhammaystirka dastuurka amniga qaranka iyo in la isla kaashado sidii cadowga al-shabaab iyo daacish dalka loogu xarayn lahaa in dib u heshiisiin qaran la sameeyo lagana midho dhaliyo wadahadallada somalilan in dib u dhis buuxa lagu sameeyo dhaqaalaha dalka si kor loogu qaado shaqo abuurka dhallinyaradeenna iyo in la hergeliyo doorasho dimuqraadi ah oo qof kasta codkiisa ku dooran karo madaxdiisa mustaqbalka mudanayaal iyo marwooyin waxaan halkan idinku xaqiijinayaa sida ay nooga go'an tahay qabsoomidda doorasho dalka oo ku dhacda si nabad ah wada ogol ah annagoo ka duulayna xasilinta siyaasadeed iyo amni ee dalka sidaa daraaddeed waxaan si joogto ah uga wada shaqaynaynaa hubinta fulinta dhammaan heshiisyada lagu hergelinayo doorasho ku dhacda si nabad ah. Wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.